inaad wax kala socotid haddaad rabtid nolosha Malaysia iyo xaaladaheeda iyo jadwalkeeda iyo maxaa la dhahaye high price miya low price miya insha Allah kala soco channel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان خيارتا ميل walba adduunka aad ka joogtaan waa idin salaamay waa markale walaasheen Faadimo cali ku soo dhawaada maanta muuqaal cusub please markii kugu horeyso soo booqsatay channelkan haday tahay subscribe inoo saar hore nala joogta like iyo commentiga naga soo dhis dhiirigelin ayeenoo tahay maanta khiyaarey meeshaan waxaan u maaday gabadheedii ayaa tababar ugu socdo way jeceshahay meeshaan marka waxaan rabnaa barnaamijkeena sheekadeena idin socotay inaan si dhameystiro haddii ilaahay yiraahdo please subscribe ka waa wadiine si fiican ha loo sii wado like tii commentiga hana laga soo dhiso 3,000 ayaan u dhownahay ilaahay bay mahad u sugnaatay waxa waaye maalin walba wax walba maalintiis ayay dhacaysaa wax walba maalintiis ayaan la helaa waa heli doonaa haddii ilaahay yiraahdo waa marka idinka ii dadaashiin oo anigana sidaas oo kale idinla jaan qaato mar walbaba sheekadani sida wada ogeedan waxay ku soo dhamaatay qisadii halaha ugu dambeeyay channelkayga ugu dambeeyay markaan soo dhigay waxay ahayd guriga sheekadii guriga ayaan soo dhameynay haddana waxaan ka sheekeyn doonaa haddii ilaahay yiraahdo qaybtan amniga Malaysia iyo sida aan ku joogno Malaysia insha Allah ta'ala bidnillaahi kariim la soco mar walba channelkayga sidaad ugu heshid warbixin dheeraad ah Malaysia nolosheeda iyo xaaladaheeda iyo sida lagu soo gali karo iyo gurigeeda insha Allah sida wada ogtihiin maxaa la dhahaye wadanka markii la soo galayo wadanka kaliya oo lagu soo galo waaye maxaa la dhahaye baasaboorkeena oo Soomaaliga ah ayu wadan maxaa la dhahaye inta aanan ka ahayn eeshiidan kale wadankan waxa lagu soo galaa baasaboorkeena sida loogu soo galana waxay tahay inaad adig waxbarasho u socotid caafimaad inaad u socotid sida aad kaga soo sheekiyay horeba haddaad channelkayga la socotay marka hadda Malaysia nolosheeda sidee buu ay Malaysia nolosheeda guriyihii markii laga soo gudbo Malaysia nolosheeda waa iska maxaa la dhahaye nin walba sidoo uu yahay ayay ula dhaqantaa Malaysia nolosheeda dad badan waxay ku leeyihiin hay waaye calshaan aad iyo aad ay u kulushahay dadkaas waa dadka rabaan inay noloshooda fataal inay ku noolaadaan oo meelaha inay tagaan habeenkii soo caweeyaan maqaayad inay iskaga noolaadaan oo rabaan inay shopping 24 hours inay iska sameystaan dadka mar walba ka cawdo Malaysia waa dadkaas calshaan hay waaye oo qofka normal bareeska kan ku jirana wuu iskaga noolaan karaa dad waxa jiro dibadaha laga soo biido dad waxa jiro ayaga noloshooda ahaantooda meeshaan horta shaqo ma taalo hadda maanta waa shaqeynay dhahdeenna waa low dadka ugu lowsan waaye maqaayad ayaa laga shaqeeyaa adiga shaqadana hadii ku kor u boodo kun iyo wax la jiro waaye oo ringad iyo 500 2,000 ringad علشان هذه نسي فسره لو كانوا رينجد وحوالي $500 عمل كل واحد منها سي مريسا قياس هان كوني $500 رينجدنا وحوالي أديك لو بقولي كنت لو بقولي لحنا لو بقولي $7 USA هذه نلسي قيمة لو بقولي كنت استغفر الله لو بقولي كنت $1 قريها نوعيين هاي محل ده هاي براس يو لو بريس يو محل هاي دحدحات بريسكا sidaas ay guriyaha kala yihiin nolosheedana waa saas qof walba sidoo asaga uu rabo hadaada qof maanta oo ahaan inuu wax ku dheeshid amba qof oo maanta maxaa la dhahaye oo rabo inuu noloshiisa iyo amnigiisa iyo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa iyo aqoontiisa iyo meel oo nabadgelyo aad ku noolaatid hadaa rabtid way tahay waa wadan islaan ah oo 5 salaadood laga dugto oo aadaan ka maqlaysid oo dugsiyaal leh oo maxaa la dhahaa waxbarasho loo waa leedahay waxbarasho ab waa leedahay waxbarasho oo hoosena way leedahay intaba way leedahay marka anaga Soomaali hadaan nahay boqolkiiba boqol waxaan ku joognaa horta ko alxamdulillah amni waa haysanaa ma ahan maanta askar inay naga daba ordayso sida oo kale wadamada Afrikadan oo kale iyo wadamadan Sacuudiga oo kale oo askarta mar walba albaabka ku taagan oo walwal iyo walbahaar iyo cabsi aad ku nooshahay ma ahan wiilasheena badanaa waxay ku shaqeystaan taxi badanaa dad waxa jiro oo maxaa la dhahay u soo dhadhameeyo dadka oo banaanka ka imaanayaan
oo alaabaha ka saacido imaashaha sida lagu soo galo iyo fiisaha iyo waxyaabahaas u dhameeyo alxamdulillah waxaasoo dhan waa wiilasheena Soomaaliyeed oo aqoonta leh oo meeshaan rabaan inay xogaa yar shaaxigooda ay ka helaan ayaa meeshaan ka shaqeystaan haddana saasayta wax dhibaato kuma qabaan waxna oo adiga oo maanta askar daba taagan ma ahan waa wax dadkoodana ay ku caawinayaan oo adiga noloshoodana wax uga soo saaranayaan kuwa tagaasiiladana sidaas oo kale ajnabi ma qaadaan laakiin walaalahooda ay wax ka soo saartaan kuwa kale ina isbitaal lagu soo turjumaano oo kale ay iyagana sidaas oo kale shaax ka raadsadaan kuwa la soo biilo waa la soo biilaa kuwa kalena magaaladooda ayay ka qaraabtaan wayna iska nool yihiin alxamdulillah kuwa loo bareeska oo mar walba ka cabaadana waxa waaye dadka intay waxbarasho meeshaan u imaadeen oo nolosha ka dhacay oo ku rafaadsan Malaysia kuwaas waa kuwa nolosha ka cabaada mar walba oo cabasho ka tabiyo iyo kuwa rabaan inay high price ku noolaadaan ee meelaha iska tagaan shaaxiyada iska soo cabaan maqaayada iska tagaan oo lacagtooda dhulka ku darsamayso oo meel ay ka socoto iyo meel u socoto aan aqoonin marka Malaysia qofkii rabo qof nolol iyo maxaa la dhahayay aytiin iyo mustaqbal iyo nabadgelyo iyo ilmihiis inuu wax ku barto oo hatta dadkan hadda Afrikada oo ordayaan hatta meeshaan inay iska keensadaan awlaadooda oo maadaama ay sharci ay haystaan sharci ay ku joogaan anagoo sharci la'aan waa iska moodoonaa awlaadina wax waan ugu bartaan kuwa sharciga haystaana way iskaga noolaan karaan sababtay tahay Afrikadaas kale waa u dhaantaa oo habeen maalin wadna kurkur lagu nool yahay iyo maxaa la dhahay meelaha kala qaarkood marka sidaas ayaa lagu nool yahay Malaysia dad badan ayaa ka soo cabdaan Faadimo adiga sideeba uu nooshahay dadka dhahaan badana kuwa snapka igala soo xiriira asxaabteedna waa reer snap inta kala qaarkood whatsappka ay igala soo xiriiraan dadka hayga ayaa meeshaas ka orday adiga sideeba uu nooshahay Malaysia qofkii maskaxdiisa iyo maxaa la dhahaye oo noloshiisa iyo xaaladiisa og oo maxaa la dhahaye indhahana u furan yahay waa ku noolaan karaa sababtoo ay tahay mar walba waxa la rabaa adiga inaad wax aad bixi kartid waxna oo soo gali kartid maxaa la dhahaye anaga ma shaqeeyno badana sometimes marmar waa iska soo dhacdaa waa iska baxna waa shaqeynaa sometimes ma arkaysid alishaan waxa waa jawiga bay ku adiga maalin dollarka waa ka caamaarkin oo maalin dhulku tagaa saas ayaa anagana nahay mar shaqada full ayay soo noqonaysaa marmarna low ayay noqonaysaa marka jawigan la soconaa marka alxamdulillah waa iskaga noolnahay waana dhaqanahay gabar hadda ka snapka igala soo xiriirto waxay tiri snapka inaan kala soo xiriiraan rabaa soo xabiibtay ani snapkaaga waxa kugu qoran ma aqaan ina adiga hay soo dhaadid maahan asxaabta dhan meeshaas ayaan wax walba uga sheegaa insha Allah ta'ala biidnillahi alkareem marka sheekadayna waa sii socon doontaa ma aha mid inta ku eg maxaa la dhahay waxyaabaha la yaabka badan inaan igaga sheekeeyo Malaysia aad ku kulmaysid intaad adigoo indhaha ka xiran imaalaheed adigoo indhaha ku furan ina imaadid waxaan channelkan u sameeyay inaan idinkaga sheekeeyo mar walba nolosha Malaysia waxay tahay adigoo indhahaaga furan inaan Malaysia aad soo gashid kuwa hadda joogaana ayagana ay la socdaan wacdiga Malaysia xaaladeeda iyo maxaa la dhahaye jadwalkeeda insha Allah ta'ala bidnaa dad badan oo waxa arkaysa intaas oo sano ku nool oo haddana nolosha aan la qabsanin wadan oo hal maalin aad ku hooyatid oo aad la qabsawaysid 10 sano ma la qabsan kartaa waa maya dad waxaad arkaysaa 10 sano joognaa ku dhahayaan haddana ku wareersan oo stress ku qaadeen oo nolosha hata aad isdhaysid qofkan shalay wuu fiyo way maanta maxaa ku dhacay marka waxyaabahaas oo badana boqolkiiba boqol aan rabaa inaan kaga hadlo oo idinkaga sheekeeyo insha Allah biidnillahi alkareem marka channelkan hala geeyo kor maxaa la dhahaye sida aan rabno 3,000 ayaan ku sii dhownahay haddii ilaahay yiraahdo sheekadeenan inta kuma sii ekaan doonto waxaa rabaa qisadan bilow ilaa iyo dhamaad inaad kala socotid channelkayga haddii ilaahay yiraahdo marka waxyaabaha oo keena inaad nolosha ka dhacdid waxyaabaha keena inaad fahmi weysid adoo intaas oo sano joogtid iyo dadka intay imaadaan intay ku wareeraan dhahaan meesha waa nalagu soo lugooyay ayaan rabaa inaan wax ka fahansiiyo sababtay tahay jadwalka markuu ku saxan yahay waa saxan tahay adigana hadduu jadwalka uu ka qaldan yahay weligaaga alahaagana hal maalin iska dhaafee 10 sano ma ku baranaysid meesha aad joogtid jawigeeda sababtay tahay jadwalka hadduu adiga ka qaldan yahay sideed baad ula qabsan doontaa meesha aad joogtid ama meesha aad rabtid nolol inaad ka sameysatid ama meesha aad rabtid amni inaad ka raadsatid waa maya ma ka sameysan kartid marka insha Allah waxaan channelkan saa idinkugu soo furtay oo sheekadan rabo inaan idinkaga dhameeyo qisadeeda waxaa dad badan ayaa iga soo weydiiyay jadwalkeeda ilaa haddana fahmi la rabaa inaan wax ka fahansiiyo haddii ilaahay yiraahdo maraba inaan igu sii dheeraado videogeena waa soo gabagaboobaya haddii ilaahay yiraahdo marka channelkan meeshii
hala gaarsiiyo oo loogu talagalay like commentigan waxay noo tahay dhiirigelin aad iyo aad u weyn inta jecelna ila soo xiriirana